congratulations waxaan idinku hambalyeynaya qalin jabintiina maanta inaad marxaladda soo gaarteen waxaan idinku hambalyeynayaa inaad xoogga dalka Soomaaliyeed ku soo biirteen waxaan idinku hambalyeynayaa in aad danab ku soo biirteen intaba waa idinku hambalyeynaya sharaf waxaa ugu badan inuu qofku dalkiisa difaacdo qof ka sharaf badan ma jiro dalka iyo diinta iyo dadka waa midkaan ku dhaaranno qof kasta oo Soomaaliya oo dhaarinayo waxa lagu dhaariyaa inuu difaacayo dalka diinta iyo dadka Soomaaliyeed marka inuu qofku intaas ku difaaco naftiisa asagoo huraya waa sharafta ugu weyn ugu karaamada badan oo qof uu leeyahay haddii la yiraahdo muwaadiniinta yaa ugu karaamada badan oo ugu wanaagsan muwaadiniinta waxaa ugu wanaagsan oo ugu karaamo badan askariga difaacay sharaf bay idin tahay marka inaad ku soo biirtaan dadka ugu sharafta badan ee ugu karaamada badan ummadda Soomaaliyeed sidaas oo ahaan jiray xoogga dalka Soomaaliyeed sidaas ay dadku markay arkaan ugu istaagi jireen dadka Soomaaliyeed sidaas askari Soomaaliyeed uusan u lugayn jirin oo qof baabuur wata uusan u baasi jirin asal saas ay ahaan jirtay laakiin burburkii markuu dhacay waad ogtihiin wax waliba uu isbedelay sumcaddii xoogga dalka Soomaaliyeed baa dhulka la geliyay dib badan baa qabsaday ciidankii baa burburay dhibaato aad u badan baa gaartay ciidankeena waxa ugu daran ee ugu dhibka badan ee ciidanka soo gaaray wuxuu noqday sumcaddii in laga dilo oo kuwo magacii ciidanka wata laga yaabo inay tuutihii wataan oo isbaaro dhiganaya in la arko kuwo magacii ciidanka wata oo dadkii shacabka wax yeelaya in la arko halkaas waxaa dhacday in sumcaddii ciidankeena ay dhaawac weyn soo gaaro waxa Ilaahay mahadiye muddo dheer kadib maanta ciidamada gorgor iyo danab dagaalka khawaarijta marka la galay waxay sababeen in ay dadkeeni aaminaan inay ciidamadoodii soo noqdeen sharaftii dadkii lahaa ay yaqaaneen inay soo noqdeen kuwa aan dhacayn oo kufsanayn oo isbaara dhiganayn oo biyaha siinaya oo baadka siinaya oo difaacaya ayay arkeen waxay marka dadkii aamineen inay xoogii dalka soo noqday Soomaaliyeed waxa soo noqotay sharaftii iyo karaamadii ayaa ciidankeena u soo noqotay markii ciidanka la aamino ayay karaamadu u soo noqotaa ciidanka marka waxaan idinku hambalyeeyaa inaad ku soo biirteen ciidanka xilli ay ciidanku sharaftoodii iyo karaamadoodii xoogga dalka Soomaaliyeed ay soo noqotay oo la jeclaaday oo xilligii ay xalana iyo Generaal Daawud iyo hogaaminayeen ay ku soo noqotay oo maanta ito dadkeenu ay aaminsan yihiin idinka idin aaminsan yihiin oo uusan jirin qof Soomaaliya oo maanta ka baqaya ama dib ka filanaya askari daraba marna uusan jirin dhammaantiin saad sheegteen oo haddaad heesaa ku qaadayseen waxay idinka filayaan inaad tihiin badbaadiyaal ay dadka Soomaaliyeed aaminsan yihiin saa darteed waxaad ku soo biirteen xilli ciidankii iyo shacabkii ay isqaateen ciidanku askarigu wuxuu geesi noqdaa markay shacabkiisu ay rabaan markay qaataan markay ka garab dagaalamayaan markay u mashxaradayaan markay u ciyaarayaan marka ay jecel yihiin markaasuu askarigu geesi noqdaa laakiin haddii askarigu shacabkiisa uu segregation kaga jiro ama dhinac uu ka maro oo shacabku ay si kale u arkaan askarigu wuxuu ku dagaalamo ma yaqaan
تاوا قضب marka fursadaasna waa idinku hambalyeynaya waxa kale oo idinku hambalyeynaydo haysataan waxaa jiri jiray askari dagaalama laakiin dawladdiisu ayna la socon laga yaabo in taliyaha iyo intay dhowr qof ay la socdaan laakiin dadku ay neutral yihiin dadka kale waa arki jirteen hadda dagaalka waxaa ku jira dhammaan hay-adaha dawladda qayb kastoo yihiin wasaaradaha institutionska kala duwan ee dalka waxay ku jiraan dagaalkan ay ku jiraan laga soo bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqay dagaalkan ummadda Soomaaliyeedna u ballan qaaday in uu khawaarijta dalka dhaafinayo xukuumadda wasiirada qaybahooda agaasimayaasha hoos u sii deg maareeyayaasha dhammaan dawladdu waxay ku jirtaa dagaalka ay ku jirtaa waxaa dagaal ku jira hooyooyinka Soomaaliyeed waad arkayseen Muqdisho wixii ka dhacay maalinka dhaweyd kumanaankii isugu yimid weligeed ma dhicin sidaas oo kale kumanaan aan gafuurka u xidhnayn oo madax u dadnayn oo cabsanaynin oo shacaba oo banaanka soo istaagay oo leh shabaab baan la diriraynaa no more khawaarij in Muqdisho leh hadda waad arkayseen in ay bishii hadda ina dhaaftay January waxaan filayaa inaad fiirsanayseen ama aad maqasheen ama aad aragteen banaanka ayaa la soo istaagay marka shacabkii oo dhan dagaal ku jira waxaa dagaal ku jira qaybihii kala duwanaa culimadii Soomaaliyeed ayaa dagaal ku jirta 400 oo caalim ayaa timid Muqdisho oo shir ku qabatay 4 bari ah waxay soo saareen iyo waxay ka hadleen waad arkayseen waxay diideen qof madaxa iska dadaya ama cumaamad issaaraya inuu xataa soo dhex fadhiisto way diideen si aan loogu malayn inay ka cabsanayaan khawaarijta fariimaha ay soo direenna macallimiintu inay idin sheegaan aan rajaynaa ee ay soo qoreen ee ay publish gareeyeen ee ay TV-yada ay ka akhriyeen intaba waa arkayseen idinkay la hadleen anaga nala hadleen cid walba la hadleen dagaalkan wuxuu yahay sheegeen sharcigu wuxuu ka qabay sheegeen diinta islaamku waxay ka qabtay sheegeen askarigeena dhinta masiirkiisa wuxuu yahay bay sheegeen masiirka ama meeshuu aaday kooda ka dhinta khawaarijta meeshuu yahay bay sheegeen intaba culimadu waa cadeeyeen marka taasna waa fursad la idinku hambalyeynaa waxaad ogtihiin idinka waxa idin sugay khawaarijta waxa sugay ilaahay baa sheegay ilaahay baa quraan ku sheegay qul hal tarabbasuna bina illa ihda al-husayayn laba wanaagsan baa mid idin sugaysa mar haday khawaarij yihiin oo in la dagaalamo ay waajib tahay oo hadaa dishiya haduu ku dilaba jannada tagayso dal laba baa hadda idin sugaysa idinka laba baa mid helaysaan ما سويسان إلهي مركو لها لاي مسلمين تاي صحابة قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين وحاد كل هذان هو أدنى در ريسان من نجس سويسان النجا إلا لبأم بعد النجا نجس سويسان لبأن أنه فلانينا لبأن صحابة أما وقول أما وشهادة لبأن اسمدوا إذا كمركب حد سويسان إن تقولي ستان أو ضلك حريسان والخوارج تكات كاتان إين الشهيدان سدا أي الشهيدان ولا الذي نصيب إليه مركوا الله واحد موت أو عن كلا دعين إما أنا جنة تكتو أي ما أنا تقولي ستو أو تكات كاتو أدو أجريجين حنبارسن صلى بدو ما فينا والله ما تصوي لكن أيهم حيسوا يعني ونحن نتربص بكم أن يأتيكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا إن إلهي لبون بتسويسان إن إلهي عذاب حقي سكي ما دد إلهي وإذا كل فت وكي آخر يكون الدنبا
أما قعنت النظر إلهي يدكو عذابون أنه إذن بابينو وان إذن لاينو وإذن دلو الله رأس مدواي إما إن أن دي آخر بكل بوا اللي ما حد كده قال إنسان وخوارج شو عليه قانا مركا أما قعنت النظر تكو بابا إنسان أو والله إنك أتكارا ولا بابا يا أحمد والله إن العذاب يا الله رأس ما يدين سويس أيها مركا الله رأس سويسة إذن كان الله رأس يدين سويسة مركا fursad waxaad haysataan marka ay tahay in la idinku hambaliyeeyo marba hadii guul iyo janno aad u dhaxayso waxaad u taagnaataa waa meesha meeyal marka fursadaas haysataan waxa markaan runtii ku faraxsanahay inaan maanta halkan imaado oo ka soo qayb galno in maanta halkan la idinku xiray cashiradii aanu diyaar u tihiin in aad guulahaas ka qayb qaadataan waxaan rabaa dawladda Mareykanka US government runtii oo inagala joogo matalayo Ambassador Larry inaanu mahad celiyo aad bay u mahadsan yihiin ciidankan runtii ay gacanta ku hayaan sida la sheegay iyo xaruntan iyo dadaalka ay ku bixinayaan aad iyo aad u mahadsan yihiin waan uga mahad celinaynaa waddanka waxaa soo maray ilaa haddana aan ku jirnaa abaaro iyo roobab aan muddo dheer diin dawladda Mareykanku keliya ma aha inay ciidanka naga soo boorgaraysay dadkeennii oo xaalad adag oo abaara ku jira oo qarka u saaran in famiin aan noqono aan ku dhacno ama caluul dadkeena oo dhimanayaan waqti dhow dawladda Mareykanku waxay ahayd runtii contribution-kii ugu badnaa ee humanitarian-ka lagu sameeyay ee dadkeena lagu badbaadiyay US government baa bixisay runtii wayna ku mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan idin sheego saddex dagaal baan cadawga kala jirnaa ama saddex aag baan cadawga kala dagaalamaynaa hal aag baad idinku qaabilsantihiin laba aag oo kale oo waaweynaa jira oo ay dad kala qaabilsan yihiin aaga koobaad waxaa waaye waa aagan militarily waanu la diriraynaa idinka aagaas mas-uulka ah waana aaga waxaa waaye ugu saamaynta weyn dabcan marka la fiiriyo oo wax badan aad ku naafayseen haddana idinkana aan rajaynayo insha Allah inaad inta dhiban aad si raacin doontaan aaga labaad waa aaga dhaqaalaha iyo financing aagaas waa aag aan dagaal kaga jirno waxaan ku jirnaa dagaalkii ugu adkaa waana ku naafaynay lacaga badan ayaa la xayiray oo baaritaan ku socda number far badan ayaa la xiray oo baaritaan ku socda waxaan rajaynaynaa waxaan diidnay in lacag la siiyo kuwa lacag u sii wada ayaan soo xirnay waxaa la burburiyay dhammaan maxkamadihii iyo meelihii ay lacagaha ku urursan jireen ayaa la burburiyay sidaa darteed maanta waxay runtii ay la ildaran yihiin dhaqaale la'aan dhibaato ayaa haysata dawladduna way ka shaqaysay si xoog leh uga shaqaynaysaa waxaan soo saaray sharciyadii iyo xeerarkii oo hadda baarlamaanka sii maraya oo wax looga qabanayay dadka finance gareeya ama lagu tuhmo inay finance gareynayaan sidaa darteed guul ayaa laga gaaray marka dhaqaale xumo badan baa nimankii ku dhacday dhinacaasna dagaal xoog laga qaadnay dhinaca kale ee muhiimka ah ee dagaal ka qaadnay waxa weeye dhinaca ideology-ga ama dhinaca fikirka oo waad ogtihiin inay dadkaasi aayado quraan akhriyaan oo xadiis akhriyaan oo dadka jihaad ugu sheegi jireen waxaan marka arintaas oo arin halis ahayd oo runtii dadkeenu ay ku dawaqansanaayeen ay ku wareersanaayeen arintaas tawaaniga idin sheegay dagaal baan ka galay culimadii Soomaaliyeed ee la yaqaanay oo dhan baan u yeernay waa la baaray waxay yihiin nimankan
waxaa soo cadaatay oo shacabka iyo dadkaba loo sheegay oo loo cadeeyay nimankan inay yihiin khawaarijna waa la yaqaanaa waxay yihiin oo nabigeena sheegay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi tuuba liman qatalahum aw qataluuh waxaa guulaystay ninkii ay dilaan ama dila ayaga labaduba waa guul marka dadkeena waxaa u cadaatay waxay yihiin way sireen berigii hore magacaas quruxda badan oo al-shabaab la yidhahday ku sireen laakiin magacaas been waaye علماء إني سنهاينا والله شيء والله قرتي نبي جنون أول شيء إني صلاة تكنيان القرآن كآخرنيان أو السوميان أو حتى مرة كقارقد مرة كذا ركض عبادة عدو يصير يسنى يسوق ده يسوق مرة مسلم متي عدو إيه كافي لكن حضنا أيوة أساس تهاي عقيدة ده درتين وحي الرميسيين هنا حن درتين أي النبي يقول هاي طوبى لمن قتلهم أو قتلوه دين تود هالك عمر دافس وحيا خلنا يارون ماشي عمر دافاي مركا وحاد بوليستين نينكي دلاء أما يدلاء تذكر مركا وحي روميستين ده علماء دي بعلى هذا الشيء مركا ما أنت وحي يهين باللوجه السداس ويصير لو قول ليرنا يوحى كان ليرنا أنت شعب وقول ليرنا لو عيسنايو لو برنايو لو يسوق علينايو صوب تكيني سوا مداس waxaan rabaa inaan warka ku soo gabagabeeyo xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha dawladdu waxaa ka go'an marna inaan la aqbalin in qof ka midad kuwaas dalkeena inuu joogo waxaa naga go'an dalka in laga xoreeyo sanadkan haddii ilaahay yiraahdo waa sanadkii guulaha waxaan rajaynayaa sanadkan insha Allah dayn cafis wax la yiraahdaa jira dayn dalkeena lagu leeyahay oo dawladdii hore gashay oo culays aad u far badan dalkeena ku haya oo wax far badan inaga hortaagnaa oo aan ka soo shaqeyno ilaa hadda ka shaqeyno in la inaga cafiyo dastuurkeena dhamaystiraynaa kuwana dalkan ka nadiifinaynaa sanadkan insha Allah sanadka soo socda waa sanadkii barwaaqada haddii ilaahay yiraahdo wax kasta oo idinka maqan oo aad tabaysaan waxay idinkaga xiran tahay in khawaarij dalka laga xoreeyo haddaad tabayso mushaar la'aan haddaad tabayso waxbarasho xumo haddaad tabayso nolol xumo haddaad tabayso jid la'aan haddaad tabayso beer la'aan iyo dalag la'aan haddaad tabayso yani dhaqaale xumo wax kastaba fi caafimaad xumo waxbarasho xumo wax kasta oo xun waxaa mas'uul ka ah oo ku xiran tahay oo condition u ah oo inaga xigta inaan iska xoreyno khawaarijta maalinkan nimankaas isdhaafino dalkeena waxaa dhamaanaya xun way dhamaanaysaa waxaa bilaabanaysa wanaagsan iyo horumar iyo badan shahar badan waxbarasho sareysa technology sareysa wax soo saar sareeya wax waliba waxa way uu sareeya xun way naga dhamaanaysaa xun waxay la socotaa khawaarijta marka waa inaan xun iyo khawaarijta israacaan oo inaga tagaan waxaan marka ku soo gabagabeynayaa marka ugu dambaysa guulaysta guul baan idin rajaynayaa waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan idin rajaynayaa waddankan inaad ka xoreysaan cadowga ilaahay idankiis khayr baan idin rajaynayaa waan ku faraxsanahay inaan meeshan idinku nimaadno maanta